Qiso cajiib ah. Qisadan walaal maanta waxaan ku soo qaadanaynaa nimcooyinka Ilaahay nagu manaystay, mana ahan kuwo aan soo koobi karno. Nin lagu magacaabo Cabdullaahi bin Nacm ah oo ahaa nin baraalis ah, aan dhaqaajin karin xubnaha jirkiisa marka laga reebo madaxa. Wuxuu ahaa mid keli ka dhaqdhaqaaqa madaxa. Cabdullaahi wuxuu isku haystay ninka dunida ugu nasiibka xun, uguna liito xaalad ahaan. Ehelkiisa ayaa waxay ku dhaheen, Cabdullaahi ma ku tusnaa qof adiga kaasii liita? Cabdullaahi wuxuu dhahay, haa. Waxaa loo geeyay nin sidiisoo kale ah oo xubnaha jirkiisa dhan aan shaqaynaynin, xataa madaxa. Waxaana loo sheegay Cabdullaahi maalin maalmaha ka mid in la arkay ninkan oonaya. Markii lasii fiiriyay waxaa la arkay dhiig ka socda. Dhiigga haddii lasii raacay waxaa la arkay gacantiisa oo laba far ka maqan tahay. Waxaana gacanta labada far ka cunay wuxuu ahaa dooli ama jiir. Cabdullaahi markuu sheekada maqlay wuu ooyey, wuxuuna dhahay, alxamdulillaah, waxaan haystaa nimco aad u weyn. Walaal ogow inuu jiro mar walba qof adiga kaasii liita. Dheh mar walba alxamdulillaah calaa kulli xaal.